magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ay wadaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee golaha mustaqbalka ugu horeeyo madaxweyne hore shariif sheekh axmed ra'iisul wasaare hore xasan cali kheyri cabdi faarax shirdoon saacid maxamed xuseen rooble cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xubno kale oo siyaasiyiinta golaha mustaqbalka waxaa maanta markaasi kulan xasaasi ama shir ay la leeyihiin madaxda markaasi ama wakiilada saaxiibada saddexda ah ee soomaaliya oo kale ah midowda yurub boqortooyada ingiriiska iyo sidoo kale maraykanka madaxda xubnaha golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa la filaya mas-uuliyiinta markan ay la kulmayaan ama maanta ay la ballansan yihiin inay kala hadlaan arrimo badan oo xasaasi ah oo ay ugu horeeyaan wax ka beddelka dastuurka ee halka dhinac ee dowladda federaalk soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud sameeye iyo sidoo kale ina lagu wada hadlo arrimaha doorashooyinka oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu cadaadiyo in miiska wadahadalka uu ku soo laabto taladana dhulka uu dhigo xubnaha golaha mustaqbalka ayaa la filayaa marka ay la kulmaan mas-uuliyiinta ka socda midowda yurub boqortooyada ingiriiska iyo sidoo kale maraykanka inay miiska u saaraan ajandayaashooda iyo sidoo kale qorshooda ku aadan xaaladda adag iyo sidoo kale wakhtigan kala guurka ah ee soomaaliya qorshayaasha markaasi ay wataan iyo sida looga gudbi karo madaxda ayaa waxaa la filayaa in markaasi ay miiska soo saaraan qorshayaal kala duwan oo xasaasi ah ay ugu horeeyaan arrimaha doorashooyinka inay noqdaan kuwo heshiis lagu yahay wax badanna ka duwan doorashadii kii dalka ka dhacday xubnahan ayaa waxaa markaasi kulankan maanta u noqon doonaa mid ay wax weyn markaasi ay ku soo markaasi bandhigi doonaan sida xogaha ay tilmaamayaan madaxweyne shariif iyo xubnaha kale ee siyaasiyiinta ee mucaaradka ayaa horey waxa ay u sheegeen in la joogo wakhtigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu talada dhulka dhigi lahaa miiska wadahadalkana uu ku soo laaban lahaa haddii taas ay dhici weysana ay tallaabooyin kale oo aan la mahdin ay qaadi doonaan iyagoo sheegay in dalka wakhti xaadirkanba uu ku jiro hubanti la'aan markaasi dhinaca hoggaanka ah isagoo u muuqda in maalmo kadib dalka uu gali doono firaaq dastuuriya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay sheegeen oo wakhtigan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in muddo 12 maalmood kadib loogu yeeri doono madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud shariif iyo xubnaha mucaaradka ah ayaa waxaa markaasi la filayaa in maalmaha soo aadan ay qaadaan tallaabooyin waaweyn oo aad u culus oo ku aadan xaaladda kala guurka ah ee dalka iyo sidoo kale sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo cadaadin lahaa xubnaha mucaaradka ayaa waxaa dad badan ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo markaasi aan lahayn aragti siyaasadeed iyo sidoo kale awood markaasi ay ku cadaadiyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud guud ahaan wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa kulankaasina waxa ka soo baxa warbixinada dambe ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhowow muuqaalkan lightsar qaybta faallada ee commentiga aragtidaada ku dhiba haddii aad horey noola jooginna nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibada mar walba nagu xiran ee hela wararkii warbixinada aynu halkan ku baahino